kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa BBC London waxaan ku jirnaa barnaamij gaar ah oo toos aynu uga tabinayno Facebooka waynu ognahay Facebooka bbcsomali.com si aad ayaad ugu xirantiin aad baan idinkaga mahadcelinaynaa kommentiyada aad bixisaan ra'yigiin aad ku soo gudbisaan sida aad ula socotaan barnaamijyada had iyo gooraale ka baxaya BBC-da marka BBC-du waxay leedahay aalado kala duwan waxaad ku dhegeysan kartaa waa raadiyihii oo muujadaha gaagaaban aad ku dhegeysanaysid waxay leedahay FM-yadii oo aad ka dhegeysan kartid magaalooyin kala duwan internetkii oo caalamka oo dhan aad ka dhegeysanaysid marka tanna waxay ka mid tahay aaladda casriga oo aynu ugu talagalnay inaynu dhegeystayaasheenna daawadayaasheenna akhristayaasha BBC-da aynu ku siino barnaamijyo kala duwan waxaa taasi barbar socota in haddii aabeedma uu jiri doono telefishin bisha shanaad ama bisha May sanadka soo socda isaguna bilaaban doona marka barnaamijyada BBC-du had iyo gooraale waxay dadka ku gaarayaan nooc walba oo qofku uu adeegsanayo haddii aad computerkaga haysatid haddii aad mobile haysatid haddii aad tablet haysatid ama radio marka BBC-du waa barnaamij weyn oo aynu ugu talagalnay in dadka aynu ku gaarsiino akhbaarta ugu dambaysa dalka gudihiisa iyo dibaddiisa marka barnaamij gaar ayaynu maanta ka hadli doonaa waa barnaamij sportska ama ciyaaraha inta badan aynu ku soo qaadano marka waxaynu eegi doonaa marka ciyaaraha dibadda kaliya ka hadlamayna waddanka gudihiisa baan ka hadli doonaa waxaa kaloo jira oo maanta aan idiin haynaa oo marti inoo ah mas-uul ka tirsan xiriir cusub oo kubadda cagta ah oo FIFA aan ahayn oo Soomaaliya kaalin muhiima ay kaga jirto doorasho ay ka qayb galeen marka goorta la dhisay iyo Soomaaliya sida ay u noqotay inay ka mid noqoto ururkaasi ayaan idiin haynaa marka waa barnaamij aad u balaaran waxaan isku dayi doonaa haddii ay bidmo in wixii aad noo soo qortaan haddii ay macquul tahay aynu ka jawaabi karno marka waxaanu jecelnahay dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta naga mudan daawadayaasheen aynu qadarinayno ee BBC-du in ay had iyo gooraale aynu jecelnahay inaan ra'yigiina soo dhaweyno waxa aadan soo weydiisaan aan jecelnahay wixii aynu waqti u helno inaan ka soo jawaabno marka waxaa ila fadhiya aan idin baro waa taqaanaan maxamed axmed daysane in badan ayaad ogeydeen inuu barnaamijyada BBC qayb qaato waa qabiir BBC-da ka tirsan waa qabiir ciyaaraha waa ciyaartoy hore oo Soomaaliyeed maxamed axmed daysane waxaa kaloo ila fadhiya xasan cabdi goodax waa mas-uulka aan idiin sheegay ururka la yiraahdo Somali Mini Football Federation gaar ahaan waddanka ama qaaradda waqooyiga America marka Soomaaliyana xataa uu matalayaa waraysigaasna waan idin haynaa waxaan jecelnahay marka inaan had iyo goor aan fiirino sida aad uga soo qayb qaadanaysaan barnaamijka marka barnaamijka inaad share gareysaan inaad asxaabtiin la wadaagtaan waa waxa aan rajaynayno aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin sida sharafta leh ee aad nagala socotaan marka daysane iyo ciyaarihii waan u soo laaban doonaa xasan ayaan ku hormaraya xasan cabdi goodax waxaa loo yaqaanaa shiikha xasan waxaad inoogu warantaa bal daawadayaasha BBC-da hadda ku daawanaya tooska Facebooka kaa daawanaya inaad bal inaga siisid warbixin xiriirkan cusub ee Somali Mini Football bismillaahi raxmaani raxiim aad iyo aad ayaad kugu mahadcelinayaa bahda BBC gaar ahaan qaybta Soomaalida xiriirkan waa xiriir cusub kuna cusub caalamka Soomaali ahaan xiriirkan waa nagu cusub yahay dad badan ayaa yacni fahansanayn marka waxaan rabaa si cad oo clear inaan u caddeeyo oo aan wixii karaankayga aan awoodo aan kala dhigo xiriirkan waxaan ku biirnay sanad ka hor waa xiriir jira waa xiriir caalami ah waa xiriir ka duwan xiriirka FIFA oo sida FIFA oo u taagan yahay sharciyadiisa uu leeyahay u leh waa xiriir jira oo caalami ah dowlado badan oo caalamka ay ku jiraan dowladaha isboortiga weliba aadka iyo aadka ugu qiimaha badan haddaan ka meeshin gareeyo ama aan ka soo qaato waxaa ku jira xiriirkan waddanka Spain waddanka Ingiriiska oo hadda meesha aan joogno ah waddanka Talyaaniga wadamo badan oo caalamka ka mid ah xataa Mareykanka ayaa ku jira marka ka Soomaali ahaan anaga xiriirkan wuu nagu cusbay waxaan ku biirnay sanad ka hor wax qabad badan ayaan sameynay oo horumar ah qaybta isboortiga ee Mini Football waxaan leenahay liigag badan xiriirkan sidiisaba Soomaali ahaan wuxuu ka soo bilaabmay waddankeennii hooyo gaar ahaan magaalada Kismaayo ayaa ahayd magaaladii ugu horreysay ee looga dhawaaqay laguna dhidibadiisana lagu taagay xiriirkan wuxuu hadda xafiiskiisa rasmiga ah ku leeyahay magaalada Muqdisho oo uu noo joogo halkaas xogayaha guud ee Xaaji Aadan kheyr Allah ka siiyo oo marxalad adag ku shaqeynaya horumariyana
waa ninka keliya oo gobol walba soomaaliya ka mid a xiriirkan geeyey waana ka shaqeynaa gobol walba soomaaliya ka midana waxaa noo jooga mas-uul ama xubin annagana matalaysa waayahay xasanow waxaan rabaa dhegeystayaal badan ayaa ku dhegeysanaya kuna daawanaya sax marka bal waxaan inaa ogaano goormaa la aasaasay xiriirkan la yidhaahdo world mini football federation la aasaasay 3 sano ka hor caalamka kuma jirin hadda ayuu caalamka ku cusub yahay waa wax cusub laakiin ka soomaali ahaan annaga aan weligeen dheeli jirnay ama indoor soccer ama ciyaaraha gudaha oo يعني بنانك واجي أن يرين حتى وعيار الجرني. مركب مال بنانك لو مال بنان ما بنانا لو عيارا كان فستل كعمل لو مال جود لو عيارا بنان لو عيار ما جرام دي سوا فيدينهن مرمر كاركون نوا ددينهن جرام لا ددي كرواي لكن ومال بنانا أو سايز ك 11 سايز كأن لو عيارا أو أحمد سايز وحلو عيارا وتضبط واللح والشن مركب أنا واجي أن يرين أن سوكرين ما دام أن ضد بدن أيسن جانس وهلن إني ديلان ciyaaraha caadiga kubadda cagta hoostaga isboortiga qof Soomaali oo aan dheelin mini football ma jiro qof walba oo xaafad ku dheelay mini football ayuu dheeli jiray kaasoo banaanka lagu dheeli jiray laakiin waa asagii oo aan next level loo gudbiyey la sharciyey shuruudo loo sameeyey refereeyaal loo sameeyey nidaam qaasa loo sameeyey oo caalami ah waayahay waxaa jirtay shir aad ka qayb gashay aad ka qayb gasheen adigu aad ka mid ahayd dad ka qayb galay oo Soomaaliya marka shirkaasi muxuu ku saabsanaa xagee uu ka dhacay سؤال آد ياد مهم وأنا بالشدة الصوماليات أجودان مهم وتهاي شركاس وحو كدعي مقالة تونس ودنك تونسيا مقالة تونس هالكا وحا يسوي ماذي دور حبنات أما ودن أو ممبر كأه وول ماني فوتبول هدي أن كاغا سوق هذا وحا يمد ماشا قلبو وحا ماذي وكيل وصعده ama madaxweynaha mini football ee wadankaas waxa kamid ah wadamada South Africa waxa kamid ah Tunisia oo lagu qabanayo martigelinaysa shirka waxa kamid ah Libya waxa kamid ah Gambia waxa kamid ah Soomaaliya oo aan ku tagnay halkaas delegate 5 qof ka kooban 5taas qofna aan is aqoonin meeshaan isku baranay hal ujeedada ayaan lahayn in aan wax nadiif ah oo bulshada Soomaaliyeedna ku yeelatay aan uga soo qaadno alxamdulillah wa ilaahu waa nagu guulay dad badan baa daawanaya barnaamijka ilaa 500 ilaa 1000 ku dhow marka waxaan aad ugu cudur daaranaynaa inaanan heli karin inaan qof kasta su'aalihii oo dhan soo wada aragno marka qofkii aynu ka tagno aad baan ugu cudur daaraynaa waan ka raali gelinaynaa BBC-du waa saaxiibkiin had iyo gooralana inaad la xiriirtaan jecel idin soo dhaweynaysa barnaamijka inaad sii sheergalaysaan asxaabtiin la wadaagtaanna waa idinka rajaynaynaa Manchester iyo Arsenal kubadda ay ciyaarto ee isheeg ciyaaraha qaranka caadiga ah waxba kama duwana laakiin waxa kaliya oo aan ka duwanaa waa sharciyada iyo garoonka aan ku dheelayno waa ka size yarnahay waa ka goolal yarnahay waa ka dad yarnahay waayahay liibaan maxamed maxamuud ayaa talo idiin soo jeedinaya wuxuu yidhi assalaamu calaykum BBC wacalaykum assalaam waxaan rabaa buu yidhi waxaan weydiinaya walaalkay hal koox yaa la soo xusho hal aada gobolada yani hal meel yaan la aadina goboladii hal aaduu leeyahay marka waa talo idin siinayo maasha allah waa qaadana taladiis waaya aad u mahadsantihiin weynaysaa sidaan isi lamid ah toddobaadyada dambe ayaan isiin doonaa waqti sidaan oo kale lamid ah haddii alla idmo waxaan u mahadcelinayaa maxamed axmed daysane iyo xasan goodax oo maanta inoo ahaa marti iyo farxaan maxamed jimcaali oo barnaamijka isku soo dabirday intaas iyo nabadgelyo